maanta waa taariikhdu tahay santii bis January 2019 halkan warbaahin aan ku qabanayno marka ugu horeysa taliyaha saldhigga Sheekh Nuur taliyaha qaybta bariga taliyaha ku-xigeenka hoggaan ku-xigeenka awlaha iyo hoggaan ku-xigeenka tababarka waxaan halkan ka salaamayaa taliyaha guud ee ciidanka biliiska iyo dhammaan ciidanka biliiska jamhuuriyadda Soomaaliland markii ku sugan yihiin ciidanka biliisku isagoo gudanaya waajibaadkiisii qaran ee loo igmaday ama loo asaasay wuxuu ku jiray hawlgal aan kala go' lahayn oo uu ku soo qabtay dhalinyaro fara badan kuwa moobilada booba tuugta iyo khamri waxay xalay ku guulaysteen inay soo qabtaan 9 kiilo iyo bal xashiishada 9 kiilo iyo bal xashiishada waxaanay ku qabteen gaariga lambarkiisu yahay 80298 8,298 iyo eedeysanaha watay oo la yiraahdo Cabdirasaaq Jaamac Cabdullaahi hawlgalkaasi wuu soconayaa waxaana la sii xoojinayaa laga bilaabo galabta iyadoo la dagaalamayo kuwa rabshadaha wada kuwa khamriga ku shaqaysanaya khamriga iibsada kuwa hadii xasiisada iyo kuwa moobilada boobo waajibaadkiisii qalan isagoo gudanaya ciidanku hawlgalkaasi waa soconayaa waxaan doonayaa halkan aan uga mahadnaqo dhammaan dhalinyaradii dagaalka iskaga heli jirtay kuwaas oo dhammaan qalabkii ay wadeen ku soo wareejiyay ciidanka biliiska waliba qaybta bariga wixii midiyaha wixii ay qalab samaysteen iyo faashaskii gacanta u soo geliyay taliyaha qaybta kuwaana waan ku amaanaynaa waxaana noqon doonaan kuwaan kaga warayno goobahooda haddii ilaahay ka dhigo sidaasaa dhalinyarada aan ugu mahadnaqayaa maadaama ay soo weydiibeen oo qalabkii ay ku soo wareejiyeen qaybaha ciidanka waxay idaacadda BBC-da war aan sal iyo raadtoona lahayn ka sheegay ninka la yiraahdo Absaalax kaasoo yidhi waxa dalku ku jira nabadgelyo daro waxaan leeyahay dalka waa nabad dhacdana way dhacdaa ciidanka biliisku waajibaadka shaqada ayuu ka qabsadaa dhacdada dowladda Soomaaliland dadkeeda ayay ilaashataa adigu se waxaad u qiildaysaa hawlo adiga ku gaara oo aanay fanaaniinta kale kula qabin waxa kale oo aan kula socotiinayna meelaha kale ee aad ku xiran tahay iyo afrikaadooyinka aad ciidanka biliiska u geysatay qoraalkeeda iyo cadaynaheeda waa laga sugayaa fanaaniinta qaranka ammaan bay naga mudan yihiin dhammaantood waxaanay ummadda uga mas-uul yihiin wacyigelinta dadka adigu se waxaad u qiildayaysaa hawlahaagii gaarka ahaa hoteelada aad sheegaysa waxa loo maray hoteelada la xilay iyo kuwa habeenkii shaqada laga joojo waxa loo maray sifo sharci ah waxaana qaar badan ay dadweynuhu ka soo gudbiyeen qoraallo wasaaradda awqaafta iyo loo soo gudbiyey sharcigaasaana lagu joojiyey ama lagu xilay hudheelkaa wariyaha walaysana waxaan leeyahay waxaad baalmartay xeerkii saxaafadda ee dhexdhexaadka waayo dhinaca keliyaad waraysatay oo warkiisii daysay waxaan abwaankaa uga digaynaa aflagaadada ciidanka biliiska